dhowrkii toddobaad aynu soo dhaafnay ayaa kooxda nabaddiidka argagixisada al-shabaab laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolkan Shabeellada Dhexe. Deegaanadaas waxaa ka mid ah deegaanka Warciise oo u dhexeeya degmooyinka Jowhar iyo Raagacele. Maalnimadii shalay howlgallo waxaa ka sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayay dadka deegaanka oo isoo abaabulay, waxaana hogaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makaraan, taliyaha guutada afaraad qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Sani Cabdulle iyo Korneel Masdile. Inta howlgalku uu socday ayaa ciidamadu waxay gacanta ay ku soo dhigeen horjoogihii kooxda qabaariinta al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka Warciise, kaas oo lagu magacaabo Maxamed Jiile Jarasow. Sidoo kale ciidamadu waxay burburiyeen maxkamad beenaad maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Warciise. Horjoogaha kooxda argagixisada al-shabaab ee gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay. Anigoo Maxamed Jiile Jarasow maamulka al-shabaab waxaan uga shaqay jiray sikada qaadowgeer iyo tawarucaadka intii 10 sano anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya. waxaan ka aruuri jiray Soono Jowhar Burkama Bareeyo ilaa intuu dhaxaysa Dabagaab Raagacele inta ka sokaysa. Isbedel waxa ii muuqdo waxtar ah oo waxgal ah oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo. anigana hadda mugaas aan saas dhahayay ma isqarihayn ma leexleexayn ma dhaqaajihayn ma gagambahayn. waxaan ka rajayaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolka nadiif. taliyaha ciidamada dadka deegaanka isoo abaabulay Siiso Umar Cadle ayaa al-shabaab ugu baaqay inay isu soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan ugu baaqayaa shabaab gabalkiisa waa dhacay, dheedkiisa waa dhacay, waana u dhamaatay. ragga meelaha ku maqan oo hadda waaga meelaha dhuumaaleysaya waxaan u dirayaa baaq inay fikirkii awal ay haayeen ay markaas dib uga soo noqdaan, dadka hore ay u yimaadeen. dadkan dadkoori waayay fikirka la dhacsiiyana wax jira ma ahan. diintii habarta iyo adooga ay ku dhasheen ku dhaqan jireen wax ka bedelan wadankan ma yaalin. nima waxa lagu xiray waryaa geerka xad u xirtay, geerkaaga xad u xirtay. geerkayga ma ani qof igala talsan jirta hadaan rabo wax xiira hadaan rabana waa deysaha waa gartay. waxa lagu yiri ilmaasika ka keen haruubo. waxa lagu yiri hadana beertaad maanta dhaweed gadatay, beertaad maanta dhaweed gadatay ka keenaa lagu yiri wixii geeri. beertaad maanta dhaweed gadatay oo 10 sano 20 sano ka hor intaana shabaab wadanka imaanin beerihii la geday lacagtoodii keen horta meesha taal. shabaab meeshan isxaan ma dhigan mana u yaalo. haddana waana ka daba madowna halka meelaha ku dhuumaaleysay halka isoo dhiibana cid haysata male. dadkana uu ka mid yahay dadka kaleentana oo dhuumaaleysana waa ka daba taagan. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makaraan ayaa waxa uu sheegay in howlgalladu ay sii socon doonaan ilaa gobolka Shabeellada Dhexe lagu xoreeyo kooxda argagixisada al-shabaab. maalmaha waxaan maartay howlgal ka wadnay tuulada Warciise iyo Wardagax muddo 3 maalmooda. howlgalkaas oo lagu nadiifiyay haraadiga ka helay nimankii qawaariijta ahaa oo ummadda dhibaatada u geysay wadankan. alxamdulillah waxaa noo suurta gashay in dad badan oo kamid ah dadkii maartay la shaqeeyay nimankii nabadiidka ahaa ama ha u qaadaan ku hanaqdaan kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama ha naqdaan kuwa hore u dhibaateeyo dad badan oo deegaankan kamid ahay ciidamadii macaawisleyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyay, guryahoodana in la guba ka shaqeeyay. iyo kuwa kale oo maartay ka tirsan kuwaas ayaan maartay qaybo badan oo kamid ah dadkaas ayaa la soo qabtay. waana la xiray oo maartay waxay u loo gudbiyay degmada Raagacele ayaa lagu xiray. sida ay u kala daran yihiin hadduu Ilaahay ilaa dambiyadooda lagu kala qaadi doonaa, waxaana loo gudbi doonaa maartay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen. waxaan u sheegaynaa qofka soo joogta meeshan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqeeyayso nimanka nabadiidka hadday xaatee telefoon kaliya kula shaqeyso ma la dhaafi doono, waana lagu raad joogaa, waana la soo qaban doonaa. meelaha ii xiran shabaab ay soo war anagu ku hortaagan hadaadan naga cabsayn ma nin telefoon durkaas oo waana karaama badan
haddaad amarkiisa qaadatay kayna diido kaynaa socay anigaa meesha taagan waana ballan in tilaab laga qaado qof waliba ganacsigeeda ha furato si xurriyada ha u shaqaysato shabaab meesha ma joogo mana soo socdo mana soo naqahayo qof kastaba si xurriyada inay u shaqaysatay sharaf ku noolaataan rabnaa aad iyo aad dadka deegaankan jooga waxaan u sheegaynaa dadkii hadda ka hor wixii ka horreeyey dadka u tiftifaya ama dadka u rufiyaanaya ama dadka maarta wararka beenta u sheegaya dadka ee ku dhibaatay jira shabaab maalintan ku helno ciqaab ayay la kulmi doonaan sharcigaana la horgeey doonaa qofkii ka baxay yiraahdo waa soo dhiibay waana wixii shalay aan dimbiga aan galana waxaan rabaa in layga cafiyo qofkii yiraahdana marka dawladda ayada maartay dadkeeda jecel ayada maartay baabka naxariista ayada u fiirihayso laakiin inaan anaga soo qabanay waqti ku bixin baabka naxariista loo fiiriyo ma sharcigu mara haduu ilaahay yiraahdo